Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal halkaan nagala socotaan waa Calas 24 Post bartaan ku leenahay YouTube-ka taariikhda caawa 24 bishii 2023 qodobada kooda ugu weyn caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka Ukraine iyo Russia u dhexeeya hal sano jirsaday siyaasad ugu falceliyeen dowladaha reer galbeedka ee ka mid tahay dowladda Kanada iyo Ingiriiska iyo Mareykanka midowga Yurub magaalada Brussels oo soo baxa noocaas lagu taageerayo dalka Ukraine lagu qabtay madaxweyne Zelensky oo shacabkiisa kula hadlay qarsiga madaxtooyada ee dalkaas iyo ciidamada qalabka sida baroodiiqna u sameeyay dadkii faraha badnaa halkaa ku geeriyooday ciidamadiiba qaarna ku siiyey bilo sharaf madaxweynaha dowladda Russia oo soo bax ku dhawaaqay habeenkii xalay ee dalkaas oo ahayd Fadlan ayaa lagu taageerayay dagaalka dalka Ukraine ay ku qaaday dowladda Russia waxaana halkaa lagu qaaday hees dhiirigelin ah oo shacabku aad u jecel yihiin dalka Russia heestaas oo la qaadan jiray xilligii midowgii Soviet madaxweynaha dalkaas Ukraine Russia Vladimir Putin ayaa khudbad dheer halkaa ka jeediyay oo qiiro leh wuxuuna yiri soo qaatay khudbadiisa waan dalkayga hooyo waan difaacaynaa horena u difaacin doonaa odayaashii ayaa halkan soo gaarsiiyey waxaan diyaar u nahay hadda inaan difaacno cadowga iyo naasiyiinta dalkayga kusoo duulana waan tirtirin doonaa waana difaacin doonaa waxaad ogtihiin uu yiri taariikh dheer in dalkaygu leeyahay boqolaal sano ayay isku dayeen inay dalkayga qabsadaan laakiinse awoodda allana siiyey ayaana ku difaacanay dalkayaga shacabkayaga qiimaha badanna iyo sharafta badanna waxaad ogaataan inaa cadow leedihiin cadowgiinana oo albaabka joogo cadowgaaga hadduu albaabka taagan yahay ha sugin intuu kuusoo gudbayo ee adigu ka hortag madaxweynaha dalka Russia ayaa sidoo kale la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda China oo isagoo waday dhammaan nabadgelyo ay soo dhigtay dowladda China maadaama dagaalku uu daba dheeraaday si dagaalka loo joojiyo 12 qodob ay ka koobnaa dhamaalkan dowladda China waxay rajeynaysaa in dagaalka la soo afjaro sida dhaqsaha badan sidoo kale madaxweynaha dowladda Russia ayaa ka gudoomiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda China dhamaalka uu ka waday madaxweynaha dalka China ee dhigiisa Xi Jinping madaxweyne Putin sidoo kale daawadayaal wuxuu qorsheynayaa dhawaan oo khudbadiisa ka mid ah xalay uu soo qaatay inuu carsiyan doono ama dib habeen lagu sameyn doono bintaalada ridada dheer iyo kuwa ridada hooseba kuwaas oo qaada madaxda qaybaha kala duwan ee hubka sida baan wax u gumaada nuclearka daawadayaal halkaan nagala socotaan waa barta YouTube-ka ku leenahay ee Calas 24 Post sidoo kale waxaan warka ku soo qaadan doonaa madaxweynaha dowladda Ukraine madaxweyne Zelensky ayaa asna la hadlaya ciidamada qalabka sida dalka Ukraine qaybahooda kala duwan waa kana madaxweyne Zelensky oo ka soo baxay qasriga madaxtooyada dalkiisa waxaana hordhowaan qarsiga madaxtooyada hortiisa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan calankii dalka Ukraine kor ayaa loo qaaday baroodiiq ayaa loo sameeyay ciidamadii iyo shacabkii ku geeriyooday sanad guurida ka soo wareegtay ee halka sano ee caawa ku eg markii Ruushku duulaan ku ekeysiyay dalkaas ciidanka qalabka sida ayaa hal daqiiqo oo aamusnaa madaxa ayayna hoos u fururiyeen madaxweynaha Ukraine oo khudbad dheer halkaa ka jeediyay wuxuu ballan qaaday in dalkiisa la difaacan doono saraakiisha ciidamada ee qalabka sidana oo geesiyaasha wuxuu bilad sharafeed iyo darajo kor loo qaadaba oo garbaha uga xiray wuxuuna uu ku tilmaamay geesiyaal dalkooda difaacay una taagan hameenaya maalin wuxuuna sheegay dagaalku inuu sii socon doono wax nabadgelyana aan qaadan doonin ilaa iyo dhulkayga taa ka mid ah ay ku jiraan cadowga dalkayga kusoo duulay sidoo kale magaalada Buusha ee u dhoweyd magaalada Kiev ee 20 kiiloomitir u jirta oo shacab badan lagu xasuuqay ayaa halka ayadana baroodiiq loo sameeyay daawadayaal dagaalku sii socdaa baroodiiqii iyo ubax dhigii ayay Ukrainiintu wadaan shacabka qaybahooda kala duwan ay ku geeriyoodeen markii duulaan kusoo qaaday dalkaas Ukraine ee dowladda Russia mise waxaa ka mid ah magaalada Kiev agagaarkeeda iyo tuulooyinka u dhowaa magaalada Bakhmut oo hadda ciidamadii difaaca uga jiraan Ukrainiinta shacab fara badan ayaa ku dhintay ciidamo boqolaal gaaray ayaa ku dhintay iyo kumanaan shacabku kumanaan buu dhaafay dagaalkii ilaa hadda sii socdaa shacabka magaalada Kiev way ka falceliyeen waxay yiraahdeen sidaan xaaladdu mudane maaha markii la wareystay waxay dhaheen in Ruushku qabsanaya ayaa u maleeyeen laakiin ilaahay mahadiis waan isdifaacnay waxaan sidoo kale noo heliyay dowladihii dariska Ukrainiintu waxay leeyihiin dagaalkan guul ayaan ka gaaranaa video waxaa ka mid ah qaybihiisa kala duwan magaalada Bakhmut oo halkan uga jeedaan askartii oo ayadana maantay
Kiev markuu dabaaldegu halkaa ka socday xusku ay uga jiraan difaac ayaa halkaa lagu soo qaaday magaaladan oo hadda muddo ku dhow 2 bilood dagaal culus uu ka socdo cid guul gaadhan ilaa hadda aan la sheegin waxay leeyihiin Ukrainiintu magaaladan waa ku dhimanaynaa ismana dhiiban madaxweynaha dowladda Russia khudbad cajiib ah oo habeenkii xalay oo ka jeediyay Fatherland ee stadiumka ugu weyn dalka Russia oo qaada 90,000 oo qof 100,000 oo qof dad ku dhow ay banaanka taagnaayeen ayaan hadda niyahaynaa iyadoo muuqaal oo madaxweynuhu ku dhawaaqayo The annual Glory to Defenders of the Fatherland celebration in the Luzhniki Stadium, Moscow today. It was not the main event in diplomatic terms, but it's where we'll start. This is a world in which an old Soviet army song is reworked into rap by a Russian soldier fighting in Ukraine. For decades, Vladimir Putin has been modifying Russia's cultural DNA, pumping it full of patriotism without nuance and history without context. The result is this: a population by and large supportive of Putin's ill-fated invasion of Ukraine. Vladimir Vladimirovich Putin. Прямо сейчас идет бой. Right now, there is a battle on our historical frontiers for our people. They are being led by the same kind of courageous fighters as those that are standing here now next to us. They are fighting heroically, courageously, bravely. We are proud of them. Before his stadium address, the meeting that really mattered today with Wang Yi, China's top diplomat. Against the backdrop of war in Ukraine, this represents one of the most important strategic relationships in the world right now. In the preamble for the cameras, Putin spoke about Russian-Chinese relations developing as planned and at pace. Wang Yi portrayed Moscow and Beijing as an axis of peace and stability in the world, and the message to the US: don't think you can bully us. What's more, we will not be overwhelmed by coercion and pressure from third parties. Russia is the junior partner here. China doesn't want that partner crippled by the war in Ukraine. That's why they're positioning themselves as peace broker. But how does that square with a recent warning from the US that China is considering sending weapons to assist Russia in its invasion of Ukraine? To an unfamiliar eye, this may look like one colossal thicket, but the first look is deceptive. The soil here is carved with trenches reinforced with concrete. Ukraine has turned this woodland into a citadel. Russia, in turn, is bulldozing this bastion with tanks. After a couple of days of rest, this tank crew is once again on its way to take part in the onslaught, in Russia's onslaught on Ukrainian positions in the forest outside Kremenaya. This is Russia's separate assault battalion, Ural,
A crew of volunteers who couldn't let their military experience go to waste. This battalion is a separate assault unit of the Ministry of Defense, with the support of private individuals. Our task is to knock the enemy out of the forest. We work from different distances. They rush Ukraine's positions and raise hell in the midst of the enemy. Kiev troops respond with all they've got: RPGs, artillery, and heavy caliber rounds. The crews seem unfazed. Russian tanks continue the fight until they run out of ammunition. Scarred but fully functional, they withdraw to return with more firepower. Tanks provide invaluable cover to Russian ground troops. One Special Forces unit capitalizes on the distraction and gets close to one of the enemy dugouts. There's nary 20 meters between the warring sides. 3 Ukrainian soldiers try to put up a fight, but when their commander is downed by a clean headshot, they peek at the drone camera, hands up in the air. Ukrainian officials have been claiming this is what Russia's new all-out offensive looks like. But given how much reserves stayed put today, it was combat reconnaissance at best. Amir Geshdanov reporting from the Donbass, RT. Готов. Наведен, готов. Выстрел! الرحمن الرحيم داول sidoo kale dowladda Ingiriiska oo billiqo iyo burcadnimo ku dhawaaqday caawa ayaa sheegtay lacag gaaraysa 293 bilyan oo dollar oo Ruushka ku taallay dalkaas oo invest ahaan ugu jirtay inay maaragtay lacagta xanimeen Ukraine ay ku daabulayaan lacagtaas shacabkeeda ciidamada caafimaadka haday noqoto si ay hal ku dhigeen weli lama arag lacag dowlad dalka u taallay oo si toos ah loo dhacay dalka Ruushiyana arrinkaas uga digay dowladaha reer galbeedka Mareykanka sidoo kale taas kuluu sameeyay asana hantiyalka u taallay wax xanimeen marka meesha wax ka socda dhac iyo boob baa socda Ruushka sidii dowladda Liibiya iyo Ciraaq ayaa loo boobay warbixin ayaan ka sameyn doonaa warkan ku soo xigay ayaan ku soo qaadan doonaa daawadayaal boobkan hantidii faraha badneed ee bilaayinta